baarlamaanka 11aad labadiisa aqal ayaa bilaabay Febraayo 12keedii 2024 ka doodista dib u eegista iyo wax ka beddelka dastuurka afartiisa cutub ee ugu horeysa gaarsiinta miyiga magaalo ee dastuurka waxa uu asal u yahay in bulshada Soomaaliyeed ay fahmaan qodobada iyo faqradaha wax ka beddelka lagu sameeyay kuwa lagu soo kordhiyay iyo soo jeedimaha kala duwan ee xildhibaanada labada aqal cutubka koowaad waxa uu ka kooban yahay 9 qodob si la mid ah sidii asalka dastuurka uu ahaa waxaana toosin lagu sameeyay dhammaan qodobada iyo 22 faqradood waxa xusid mudan in lagu soo kordhiyay ama lagu daray 9 faqradood oo cusub oo aan ku jirin asalka dastuurka sidoo kale waxa la tiray 2 faqradood oo ku jirtay asalkii hore ee dastuurka xildhibaanada oo doodo adag ka yeeshay isla markaana aragtooda ka dhiibtay ahkaamta ugu muhiimsan ee lagu soo kordhiyay dastuurka oo ah reebida in la caayo diinteena suuban ee islaamka sidoo kale cutubkan ayaa qeexaya u hogaansanaanta dastuurka iyo xeerarka dalka daryeelka iyo ilaalinta horumarinta afka Soomaaliga iyo suugaantiisa faalooyinka waxay tilmaamayaan isbeddelka ku yimid asalka dastuurka ku meel gaarka oo noqon kara kaabid toosin iyo tirtirid iyadoo faahfaahin ka bixinaysa asbaabta keentay in wax ka beddelkaas lagu sameeyo qodobada la tiray iyo kuwa muhiimka ee lagu soo kordhiyay waxa kamid ah qodobka koowaad farqadiisa koowaad ee asalka waxay si isku dhafan uga hadlaysaa qiyamka iyo arrimo kale oo ay ku dhisan tahay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haddase waxaa loo kala dhigay 2 dhigood faqradda koowaad oo lagu qeexay haybta jamhuuriyadda iyo qiyamka waxaa lagu kordhiyay ereyga muslima iyo saraynta sharciga farqadda labaad oo siiqeyn lagu sameeyayna waxaa lagu xeeriyay arrimo muhiim ah oo ay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku dhisan tahay waxaana lagu kordhiyay si waafaqsan shariicada islaamka dastuurka iyo xeerarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya farqadda saddexaad ereyga sharci waxaa lagu bedelay xeer waxaa la tiray ereyga mabaadiida maadaama mabaadiida shariicadu ay farabadan tahay oo aysan ahayn mid kooban oo cayiman ayna keeni karto baahsanaan tafsiireed oo ku saabsan mabaadiida faqradan waxba laga bedelay farqadan sideeda ayaa loo qaatay ereyga islaam waxaa lagu bedelay muslim waxaa toosin lagu sameeyay farqadan shanaad nuxur ahaan waxba lagama bedelin balse waxaa lagu sameeyay toosin siiqo waxaa lagu daray heer federaal heer dawlad goboleed iyo dawladaha hoose iyo sidoo kale lana sugo sababta farqad lixaad loogu kordhiyay ah in hay'ad kasta oo dawladeed ay awoodeedu ku xadidan tahay inta dastuurka iyo xeerarka dalka ay siiyeen faqradani waxay xeerinaysaa in dhammaan dadka hay'adaha dawladda iyo kuwa gaarka ah ay qasab ku tahay inay u hoggaansamaan ku dhaqanka iyo talinta dastuurka farqadan waxaa lagu sameeyay toosin iyadoo si cad loo qeexay inuu yahay waxba kama jiraan xeer kasta go'aan kasta ama tallaabo maamuleed kasta oo ka soo baxa heer kasta dawladeed oo ka soo horjeeda dastuurka waxaa loo soo kordhiyay farqadan in dawladda federaalku ay la timaado siyaasad ay ku horumarinayso kuna daryeelayso laguna ilaalinayo afka Soomaaliga iyo dhaqanka suuban ee ummadda si loo ilaaliyo jiritaanka afka Soomaaliga iyo dhaqankaba nuxurka farqadda saddexaad ee heesta astaanta qaranka waa qoloba calankeed waxba lagama bedelin aan ka ahayn in lagu kordhiyay inay tahay astaanta dawladda federaalka ah isla markaana ay adeegsanayaan dawlad goboleedyada munaasabadaha rasmiga ah si loo adkeeyo midnimada qaranka farqadan waxay tilmaamaysaa bilad sharafta iyo maamuuska ay mudan yihiin calanka dadka muteysta iyo heesta qaranka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dadka muteysta maamuuska ay mudan yihiin baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaana xeer ka soo saaraya farqadan nuxurkeeda waxba lagama bedelin balse waxaa lagu soo kordhiyay in dawlad goboleedyadu aysan yeelan karin hees astaameed oo iyaga u gaar ah qodobada la bedelay 1 ereyga dhulka waxaa lagu bedelay geyga maadaama ereyga geygu uu ka micno balaaran yahay ereyga dhulka uuna koobayo dhulka badda iyo cirkaba waxaa ereyga sharci lagu bedelay xeer waxaa sidoo kale la soo kordhiyay ereyga wabiyada 2 dawladda ayaa lagu bedelay ereyga dalka maadaama diintu aysan ahayn diinta dawladda oo kaliya
sidoo kale waxaa lagu sameeyey siiqo iyo toosin. 3 waxaa la tiray ereyga cadaaladda bulshada maadaama lagu arki karo meelo kale. sidoo kale waxaa lagu daray kadib ereyga Jamhuuriyadda Federaalka. 4 waxaa loo soo kordhiyey faqradan in dowladda federaalka ay la timaado siyaasad ay ku horumarinayso kuna daryeelayso laguna ilaalinayo afka Soomaaliga iyo dhaqanka suuban ee ummadda si loo ilaaliyo jiritaanka afka Soomaaliga iyo dhaqankaba. 5 farqada afraad ee qodobka 8 asalka dastuurka waa la tirtiray waxaana nuxurkeeda lagu daray farqada labaad ee asalka dastuurka iyadoo lagu soo saarayo xeerka habka lagu laalayo hakinayo ama lagu diidayo jinsiyadda. 6 farqada koowaad waxaa loo qoray hab qaanuuneed iyadoo lagu daray heer kasta oo dowladeed ee Jamhuuriyadda Federaalka. 7 farqadan waxay qeexaysaa in caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay tahay magaalada Muqdisho. dastuurka oo ah heshiis bulsho u baahan in la gaarsiiyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuna kordhiyaan aragtidooda ku aadan wax ka beddelka iyo in wax lagu kordhiyo ayaa ah ahmiyadda koowaad ee dhaqangelinta dastuurka. muwaadin la soco qaybta xigta ee taxanaha dastuurkeena waa masiirkeena.